arrintaas shalayta ka dhacday ku saabsanayd biyo-la'aanta waxaan qaranka kulli u soo jeedinayaa in mushkiladda biyuhu waa mushkilad taagan in la address gareeyo oo arrinta biyo-la'aanta caasimaddu wax laga qabto oo arrintaas sidii biyo u heli lahayd caasimaddu qaranku gaar ahaan xukuumaddu ay aad iyo aad uga shaqaysto iyo hay'adaha khuseeyaaba waxaa kaloo shacbiga reer Somaliland dhaawac ka soo gaadhay ama dhibaato ka soo gaadhay hawshaas ma khasaare ka soo gaadhay waxaan ilaahay u rajaynayaa in hawsha dhibta soo gaadhay haday dhaawac tahay hadii kale ilaahay u fududeeyo waxaan kaloo ugu baaqayaa shacbiga in ay ilaashadaan nabadgelyadooda iyo amnigooda waayo nabadgelyadu waxay u tahay halbowle nolosheena ama socodkeena ama shaqadeena ama dawladnimadeena intaba nabadgelyadu muhiim bay u tahay waxaa kaloo xukuumaddan u soo jeedinayaa in hay'adaha khusayso arrintaas laga cabanayay haday tahay biyo iyo haday tahay arrin kaleba in loo dhiga nuglaado oo hay'adaha arrintaas khusaysa dhammaantood wax ka qabashada arrinka si uu soo afjarmo ay u dhiga nuglaadaan oo la tixgeliyo oo la dhageysto cabashooyinka shacbiga gaadiidleyda ka imanayana in si wanaagsan loo dhageysto arrin loo baahan yahay maaha in ciidanku farsamooyin kale isticmaali karaan marka waxay la tahay in ciidankana loo qalabeeyo si ay mudaharaadka uga hortagi lahaayeen xabad nool in loo isticmaalo shacbiga caadi iyo hubaysnayn arrintaasi arrin sax maaha xaaladdu waa arkaysaan oo wax dhibaato ma jiraan wax waliba caadi marka hore khilaaf ma jirin in saxaafadda burburinaysan maalintii